Assalaamu calaykum saaxiibada qiimiga badan. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo sidee loo arkaa qofkii qarsaday last scene-kiisa ama xilligii ugu dambeysay oo uu ka baxay WhatsApp-ka. Waxaad u baahan tahay inaad Play Store-ka soo degsato app lagu magacaabo Yansa Trigger for WhatsApp. Waxaad qoraysaa Yansa Trigger for WhatsApp. Kan ugu koreeya ayaa la soo degaysaa. Kadib install ayaad daawanaysaa. Waa uu kuu soo degayaa. Kadib open ayaad leedahay. Qaabkan ayuu kugu soo muuqanaya. Allow ayaad leedahay. Kadib allow ayaad sii dhahaysaa. Calaamadda balaaska ayaad taabanaysaa sida uu ishaarta ku siinaya. Wuxuu ku leeyahay calaamadda balaaska taabo. Kadibna okay dheh. Soo tilmaamtiisa ayaan qaadanaynaa. Calaamadda balaaska ayaa taabanaya. Kadib waxaan dooranayaa WhatsApp. Meeshan waxaa laga rabaa inaad geliso qofka lambarkiisa asiga ayaa ku tilmaamay. Wuxuu ku leeyahay qofka profile-kiisa tag kadibna nambarkiisa soo copy garay ee halkaas paste ku dheh. Tilmaamtoona si ayaan qaadan doonaa. Waxaana soo copy garay doonaa qofka aan doonayn inaan aragno xilligii ugu dambeeyay uu WhatsApp-ka ka baxay. Qofkan last scene-kiisa uu qarsan yahay laakiin app-kan ayaan ku ogaan doonaa. Copy ayaa leedahay halkan adigoo gacanta saaraya farta saaraya. Kadibna nambarkiisa soo copy garay inta ayaa paste ku leenahay. Paste. Kadib okay ayaa leedahay. Kadib magaca baxsa ayuu ku leeyahay. Walaal shaaka ayaan ku qoranayaa. Okay ayaan leeyahay. Hore ayuu ka soo sheegay waa ka online ayuu leeyahay qofka aad doonayso inaad fiiriso xilligii ugu dambeysay oo ka baxay qadka. Meesha iska xir ayuuna dhahay. Meesha tigta saaranta ayaa tagta ka qaadaynaa. Kadibna waad u jeedaa qofkii qarsaday last scene-ka sidan ayaa ku ogaan kartaa adigoo soo degsanaya app-kan. Waad u jeedaa 2 minutes ago ayaa ugu dambeysay qofkan. Hadda aan fiirino WhatsApp-kiisa. Last scene-kiisa looma jeedo oo waa uu qarsaday. Laakiin waxaad si toos ah uga ogaan kartaa app-ka hadda la soo degnay. Waad u jeedaa. Haddii aad doonayso qof last scene-kiisa qarsaday ama xilligii ugu dambeeyay ee WhatsApp-ka ugu dambeysay qarsaday halkan ayaa si toos ah uga ogaan kartaa. Kaliya app-kan kuma sheegayo last scene-kiisa oo kaliya ee xilliga online soo noqday iyo xilliga offline noqdo. Labadana wuu ku sheegaa sida meeshan kaaga muuqato. Waxaan filayaa inuu ku anfacay application-kan. Tan iyo kulanti dambo waxaan idinkaga tagayaa salaanta islaamka. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.